madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigii ballaadhnaa uu hogaaminayay oo socdaalkoodii shaqo ku jooga cariga Turkiga gaar ahaan magaalada madaxda wadankani ee magaalada Ankara ayaa si rasmi ah u bilaabay kulanadii kala duwanaa ee la yeelanayeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigiisu waxa ay maanta si rasmi ah ula kulmeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkiga Simbikir Bosta oo isagu xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa lagu maamusay oo loo goglay rooga cas ee lagu maamuso madaxda kala duwan ee dunida waxaana ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkiga Mr Bikir Bosta uu kaga hor yimid dibadda hore ee barxadda xafiiskiisa halkaas uu madaxweynaha Soomaaliland ku qacan qaaday kuna soo dhaweeyay kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo ay wada yeesheen wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo dhinaca kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkiga Simbikir Bosta ayaa ay ka soo baxeen qodobo wax ku ool ah oo faa'iido u ah guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasi ayaa lagu gorfeeyay arrimaha ay lagama maarmaanka tahay in dalka Turkiga uu Soomaaliland ka caawiyo waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu faahfaahin ka bixinaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi ka soo baxay arrimaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga iyo madaxweynaha Soomaaliland ay sida qotada dheer la u taabteen waxa kamid ahayd in kor loo qaado xiriirka iyo iskaashiga iyo kaalmada dawladda Turkiga ay siiso Soomaaliland waxa kaloo aad looga hadlay in gaar ahaan arrimaha labada dawladood iska kaashan doonaan waxa ugu horeeya xagga tacliinta waliba khaasatan dhinaca farsamada tacliinta xagga farsamada iyo dhinaca caafimaadka oo aanu weydiisanay dawladda Turkiga in ay Soomaaliland ka caawiso in dhakhaatiiro ama isbitaallo referral hospitals ay dalka laga hirgeliyo waxa kaloo la isla qaatay in diyaaradda Turkish Airlines oo imika gobolka Geeska Afrika meelo kamid ah timaada in ay ku soo darto duulimaadyada Hargeysa marka garoonka diyaaradaha ee Hargeysa la dhameystiro oo la rajeynayo in bishii lixaad ee sanadkan uu dhamaadana in diyaaraddu marka halkan ay safaradeeda ka bilaabi doonto hadii la yiraahdo arrimaha kale laga wada hadlay waxa kamid ah oo horeba u taalay miiska u taalay booqasho aan rajeynayno in madaxda sare ee dalka Turkiga ay ku timaado dalka Soomaaliland waqti ku haboon oo aan rajeynayno in sanadkan gudihiisa ay noqon doonto kulankani dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkiga waxa ku wehelinayay xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland iyo ambassadorka Soomaaliland ee dawladda Itoobiya oo iyagu madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay safarkiisan waxaana geesta kale Simbikir Bosta ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkiga isagana wehelinayay saraakiil sarsare iyo diblomaasiyiin ka tirsan dawladda Turkiga geesta kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa aroornimadii hore ee saaka kulan quraac sharafeed ah u sameeyay wasiirka tamarta iyo macdanta ee dalka Turkiga Taner Yildiz oo ay weheliyaan xubno diblomaasiyiin iyo madax kale oo isugu jirta dawladda Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa goobtani ka tilmaamay xaaladda mandaqada waxaanu ka cadeeyay mowqifka Soomaaliland ee dhinacyada kala duwan ee aqoonsiga iyo horumarka isagoo ka waramay taariikhdii sooyaal ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas daraadeedna dalka Turkiga ay xukuumadda Soomaaliland ka sugayso taageeradii awal horeba ay la garab taagnaayeen shacabka iyo dawladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland can be seen what was left by the cooperation with Turkey in the past. Sizi burada görmüş olmaktan, ülkemizi görmüş olmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. And I'd like to express my pleasure to see you all here in Turkey, in our country. Hoş geldiniz. Welcome again. waxaan suurta galay in aan u bandhignay mashaariicda tamarta ee dalkeena ka socota ee khaasatan shirkadda Genel Energy ee Turkishka ah ay ka wado dalkeena aad iyo aadna way ugu riyaaqeen mashaariicda ka socota ee tamarta Soomaaliland ee Turkish ku lug leh waxaan kaloo u soo bandhignay fursadaha maalgashiga u banaan sharaa'iga
Turkiga ee ku howlan muxuu mashaariicda koronto dhaliska oo dalkeenu aad u daciif ugu yahay marka runtii taana aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen waxaan ku ballan qaadeen inay sharaa'ig khaas ah oo ku jira shaqada tamardhalista inay dhaqso ugu soo diri doonaan Somaliland sida uu indhayn lahaayeen siday maalinkan maanta iskaashi uu ka dhici lahaa sharaa'iga waaweyn ee caalamiga ah ee Turkiga ee ku howlan dhalista korontada ee imkaansa sida imkaansa waxaan wada qaban lahayn arrinta maanta wafdigani ka socday dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee uu horkaciyay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxay u ahayd maalin mashquul iyagoo si wata howlahoogaasi shaqo ayaa madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu waxa ay kula yeesheen xafiiskooda hay'adda Tika oo qaabilsan horumarinta dalka Turkiga iyo waliba mashaariicda kala duwan ee horumarineed halkaas oo ay ku qaabileen saraakiisha hay'addaasi wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda macdanta iyo biyaha madaxtooyada waxbarashada iyo dib u dejinta ee Somaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiimka u tahay in la sii kordhiyo taageerada Turkigu awalba siin jiray dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee dhinacyada kala duwan ee waxbarashada dhismaha wadooyinka biyo soo saarista dib u dejinta dhismayaasha xarumaha kala duwan ee dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxay dawladda Turkiga uga mahadnaqeen taageerada ay awalba la garab taagnayd Somaliland waxaana ay u soo jeediyeen in la sii xoojiyo kaalintii dawladda Turkigu ay kaga jirtay horumarka dalka Jamhuuriyadda Somaliland mashaariicdan horumarineed ee uu ballan qaaday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda Turkigu waxa ay hordhac u yihiin mashaariicda kala duwan ee dalka Turkigu ay ku soo kordhin doonaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana arintani kow ka ah socdaalka madaxweynaha Somaliland iyo booqashada rasmiga ah iyo martiqaadka madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu ay ku yimaadeen cariga Turkiga mashaariicdani kala duwan ee ay ugu weyntahay dhinacyada horumarinta ee kala duwan ee nolosha iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka iyo diyaaradda Turkish Airlines ee dalka Somaliland iman doonta kana dhex shaqayn doonta waxa ay kamid yihiin horumarada kala duwan ama wax qabadyada ka dhashay socdaalka madaxweynaha iyo wafdigiisa ee dalka Turkiga waxa sidoo kale harsan booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu arinta ay ku taxalluqdo oo ah kulanka wajiga ee dhici doona waqtiyada soo socda dhexmari doonana madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Maasim Axmed Cawale Ankara dalka Turkiga